بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاسترا فيكتوريا سيمبر قاقاياش ميل كستا جوجتين waxaan rabaa inaan jiilka saddexaad la soo hadlo khaasatan shacabka Somaliland. waxa weeyaan waxaa lala yaabaa in xafladii 26 Juun arag yaroo iska daciif oo qabyaalad wado eriyoonayo waxyaalahay soo qorayeen farmaajo ka hadlay midnimada runta u sheegay Somaliland. horta farmaajo inuu qabiil ku duugan yahay wuxuu ka xun yahay kelmadda Somaliland. maanta markuu Puntland ka hadlayo wuxuu yiraahdaa waa Puntland oo gobolkii bari wuxuu ogol yahay inuu Puntland yahay. Jubbaland wuxuu leeyahay waa Jubbaland. galmudug qolo walba statekeedu uu ku magacaabaa laakiin inuu yiraahdo Somaliland gobolka waqooyi galbeed waa cheapnimo. He's not a president. mid kale yaa waa ninka Somaliland la hadlay. ninka Somaliland la hadlayo waa ninka villa Soomaaliya ku dhuunsanay xabashi iyo Amisom ku ilaalinaysa. waa ninka ka qudbeenaya hotel qafilsan oo la ilaalinayo. waa ninka madaxweynenimo u sheeganaya meel shalay qarax ka dhacay daraad qarax ka dhacay maalin walba qarax ka dhacay maalin walba isku dilay. waa nin uu ra'iisul wasaarihiisa maalin walba show dhigayo sawirayo ninkan u bixiyay Jamaad Khayr bal u fiirsada. nin dhan oo ra'iisul wasaare oo shaqo laga sugay ayaa maalin walba xadiiqo tagayo bal waddanka horumarkiisa uga sheekeynaya iyo waddanka in wax la qabtay waddanka in la dhisay. ciyaal yar yar oo waxna garanayno iskuul xitaa dhigan oo xadiiqada ku jira ciyaalkii Maryaanta ciyaalkii Muqdisho oo uga sheekeynaya marna taariikh la ciyaaraya kuwaas u qodbeenaya. marka waxa weeyaan Soomaalidu waa dad riyoonays. waxay la hadlayaan shacab nabad haysto, shacab dimuqraasiyada ku dheertahay, shacab weligood centuries talin jiray Soomaali u talin jiray. waxay rabaan inay wax u sheegaan shacab maanta uu madaxweynahoodu shaaraca ka qudbeenay oo ninka xisbiga shaaraca ka qudbeenay oo wasiirka shaaraca ka qudbeenay bixi Hargeysa shaaracu ka qudbeenay. taa waxa keenaysa dowladnimada iyo nabadda uu haysto. ninne waa nin tuug oo koofid soo gashanayo Amisom ilaalinayso been oo shaar casal ku jira si xaaskiisa meesha ku tumaray ee u shaqaysanay sidee wax ku qabsadaan. markii ninkii ka sugi lahaa maanta farmaajo inuu midnimo iyo inuu qaran dhiso horta waa nin riyoonay. maalin laguma dhis 4 sano inuu shaqaysto lacag aruursado maahane wallahi inuu san farmaajo maalinna talin karin ma batalinayo. muxuu taliyaa meesha United Nations ka taliyo ciidamadiisa waa la ilaaliyaa Amisom ilaaliso. marka dowladnimada iyo qarannimada ay maanta Muqdisho sheeganayso ayaa aniga la yaabana. baarlamaanka waa guri waa qol ragga nin doortay male waa rag oday dhaqameed lacag siiyo baarlamaanka soo gal. waa rag aan wada garanayno wada tuuga. waa rag diaspora tiyaartarada xaqi jiray waxaan wasiir isku sheegay kii shalay wariyaha ah BBC da joogay iyo kii kale Al Jazeera joog ayaa waddanka ka taliya. marka waxa weeyaan we are talking dowladnimo xorriyadii aan ka soo hadlayay Djibouti taariikh bay leedahay. dad wax bartay oo u soo halgamay meeshaas oo silig ku xiran oo basas Francis Sares ilaa Muqdisho keeni jiray ee dadkii laga xiro ku soo deystay inay maxaabiis u afduubaan. waxay aayeen dad wax bartay. maanta markii lagu leeyahay farmaajo cilmi oo leekan waa been waa huha qof politician oo cilmi leh ee sidoo u hadlayay 26 Juun ma hadlay asaga iyo Maki Xaji Banaadir waa isku akhri lacag loo keena ayay ku dhisan tahay dowladnimadii maanta taariikhdii ka hadlay 26 Juun iyo kan lacag noo keenay weli ku jirta. marka waxa weeyaan shacabka Soomaaliya waxbaan meeshay anigu waxaan aaminsanahay 30 sano waddanka ma tagay. raggan kale diaspora London joogay ayuutooyinka
islaamaha ku jiro iyo lacag markay helaana liida iskaga soo tumanayaan iyo cooking the best laaqi iyo kuwa hadda abwaanka isku sheegaya abwaanka hadlaya kan iyo waxyaalo badan oo dacaayo mar hadda waxa naga dhamaatay tii walaalo afuri haddana waxaan galaynaa tu kale haddana waxaan galaynaa xaflado la dhigo marka waxa weeyaan runtii waxa jiro waxa weeyaan Soomaali way kala tagtay Soomaali way kala tagtay way kala tashatay dhibta Soomaalina waa nimanka manifesto dhibkeedii daarood bay ahayd dowladdan dhibkeedii daarooda raba inuu soo noqdo dhibta Soomaali haysato waa ummad khiyaano ku salaysan waa ummad siyaasadii ay khiyaano ka gashay waa ummad qabiil raba inuu wax ku qaato waa ummad rabta inay dalka boobaan oo dhul ballaarsi keenstaan ay yidhaahaan meel walba buqcad walba daarooda leh marka waxa weeye Somaliland waxa way ka sarreysaa Somaliland raggan Facebook la soo gelinay dhulbaantaan waa iska aqli ciyaal it's no problem they can talk whatever they want maalin waa Puntland maalin waa Soomaaliya maalin waa kan maalin waa Cali Khaliif maalin waa kan